garadag waa magaalada laga caleemay saaran madaxweynayaas dadkii uu wax u qaban waayay inuu isagu mudaharaad sameeyo taageero gubo waxa mar dhaweyd maqaalo igu ahayd in degmada Ceelafweyn warasaabka gobolka Sanaag iyo wasiirka caafimaadku ay itaal bideen inay dadka kasban waayeen inay taageero ku shiraan halkan doraad istaagay oo yiri garadag waa kulmiye waxaan u sheegaynaa garadag inaanay kulmiye ahayn ragii ka dhigi jiray hadday xildhibaano tahay hadday siyaasiyiin tahay hadday odayaal tahay hadday cuqaal tahay hadday xildhibaanada labada gole tahay inay ku waayihiin halka jooga ee musharax Cabdiraxmaan ku soo dhaweeyay degmada garadag wixii kale halka laga yiri waa waxaan waxba ka jirin iyo hadal aan la hubsan sababtoo ah ragga sheeganaya kulmiyaan nahay ama kulmiya waa reer garadag dhammaantood dhawaan bay ku soo wada biireen raggii aasaasay baa jooga halkan ee kulmiye la soo bilaabay markii doorashada Soomaaliland la bilaabay ilaa iyo hadda markii xisbigii hanan waayay raggii la soo tabcay ee garada kulmiye ka dhigi jiray waa ka guuray isbahaysiga iyo xisbiga wadani sidaas warkaas been ku ahaa saasana waxba kaga jirin reer garada soo sidaa ma aha garadag waa magaalada laga caleemay saaran madaxweynayaas runtii maanta waxa jooga madaxweynaha bishu u hadhay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi madaxweynaha kacdoonka liimiga madaxweynaha isbedelka togan madaxweynaha walaaleeye sida safarka magaciisu yahay baanu garada ku sugan garadaga waxay caan ku tahay mudane madaxweyne murashax waa magaalooyinkii laga caleemay saari jiray madaxweynaha madaxweynaha garada laga caleemay saaray Soomaaliland madaxweyne kama noqon maanta waad arkaysaa sida garadaga ay u heelan tahay qiimaha leh ay u taagan tahay runtii waxay diyaar u tahay isbedel waxay diyaar u tahay kacdoonka liimiga inay horkacdo waxay kadinka afaafka hore gobolka Sanaag u tahay gobolka Sanaag kadinka laga soo galo aad iyo aad baan taa kelmadda ku dhaafaya waxaan doonayaa inaan kelmad kale halkan ka idhaahdo runtii kulmiye wuxuu itaal gabay markuu dadkii kasban waayay dadkii uu wax u qaban waayay inuu isagu mudaharaad sameeyo taageero gubo waxa mar dhaweyd maqaalo igu ahayd in degmada Ceelafweyn warasaabka gobolka Sanaag iyo wasiirka caafimaadku ay itaal bideen inay dadka kasban waayeen inay taageero ku shiraan runtii waxaan leenahay waxa la idinka rabaa siyaasad hufan waxa la idinka rabaa in bariba musharax waa dhaafaya siyaasadda dadku ku sabataan la timaadaan oo aan ka daysaan taageeradana ku gubaysaan oo u dhiibaysaan dhalinyarada tan koobaad mudane musharax magaaladii aanu kaaga hornimay wardheer ayaa gobolka Sanaag xagga u xigta oo aanu kugu soo dhaweynay waxaanu kugu soo dhaweynaa dadweynihii reer garadag oo u heelan inay madaxweynaha bedelaan kaana dhigtaan madaxweyne kuna diyaara kuna soo dhaweeyay degmadii garadag ilaa iyo maalinta codkana sidaas ay u taagnaanayaan waxaan leeyahay mudane musharax gudoomo oo ku soo dhaw degmada garadag adiga gudoomiyahaaga aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan leenahay insha Allah guushi wax yar baa ka hadhay dadkuna arrimo badan buu la daalaadhacayay anigoo islaha dhowr arrin halkan ka dheh waxaan kaga tagayaa hadalka rag baa halkan doraad istaagay oo yiri garadag waa kulmiye waxaan u sheegaynaa garadag inaanay kulmiye ahayn ragii ka dhigi jiray hadday xildhibaano tahay hadday siyaasiyiin tahay hadday odayaal tahay hadday cuqaal tahay hadday xildhibaanada labada gole tahay inay ku waayihiin halka jooga ee musharax Cabdiraxmaan ku soo dhaweeyay degmada garadag wixii kale halka laga yiri waa waxaan waxba ka jirin iyo hadal aan la hubsan sababtoo ah ragga sheeganaya kulmiyaan nahay ama kulmiya waa reer garadag dhammaantood dhawaan bay ku soo wada biireen raggii aasaasay baa jooga halkan ee kulmiye la soo bilaabay markii doorashada Soomaaliland la bilaabay ilaa iyo hadda markii xisbigii hanan waayay raggii la soo tabcay ee garada kulmiye ka dhigi jiray waa ka guuray isbahaysiga iyo xisbiga wadani sidaas warkaas been ku ahaa saasana waxba kaga jirin reer garada soo sidaa ma aha